وعلى wanaagsan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada wareysi gaar ah iyo xog wareysi aan la yeelanayo Sahar Ciidla Nuur oo ah saxafiyad sare amaba senior journalist oo imikana ka mid ah hablaha Soomaaliland ee doonaysa inay xubin ka noqoto golaha baarlamaanka Soomaaliland ee doorashadiisu dhacayso haddii Ilaahay raali ka noqdo sanadka 2026 biidhnillaahi tacaala Sahra in muddo waxay imika ku sugnayd Washington iyo guud ahaan Mareykanka oo ay hawlo gaar ah u joogtay dhinacna waxa ay ka waday hawlo la xiriira ictiraafka Soomaaliland oo iminka moodo amaba ah in uu ka karkarsamayo magaalada Washington iyo guud ahaan dalka Mareykanka Sahra aad iyo aad mahadsan tahay in muddo Mareykan ay joogtay laakiin hawlo ku garaad u joogtay dhinacna waxaad ka waday hawlo la xiriira aqoonsiga Soomaaliland bal Sahra intii aad joogtay waxa ku baxay iyo halka wax marayaan bal noo soo yara koob عبد الحافظ وصدحي طبنكي سنادود أما هذا نرى لبيه طبنكي سنادود وجود البيئي سيدا وبانو للسعودية أرنتا اعتراف كسومالان يو دريمياشا لنا عمريكنكا ما أنت وحنا ركرا ماشي وجوس الرئيسي بمريا مركا فكتي وجوجا وحاول له بهية إمكا كجونا شهر دتك يدولة السومالان يهربتان كيدير رشد الدولة مريكنكا وحكلو أنا ركرا وكدميه مجتو واتهاي سهر محاد سليدهاي سنة كان لبدا كل iyo 25 iyo xilligan Donald Trump noqday uu ku guuleystay doorashada mar labaad in ay kor u soo qaado fursadda ah in Mareykanka Soomaaliland aqoonsado runtii danaha ayaa aad isugu soo dhawaaday baahida Mareykanku uu qabo gobolka geeska Afrikana xoog bay kor ugu soo kacday Somaliland sidaynu ka warhayno waxay ku taalaa meel qadiyadeeda geyn karta suuq iyo saylad intaynu moodayna ka weyn waxay ku taalaa bogcad istiraatiijiya waxa kale oo ay ku taalaa bogcad dhibaatooyin badan ka jiraan ayay Somaliland muddadaasi waxay ilaalinaysay nabadgelyada badda oo waynu ogeyn burcad badeed baa ka jirtay badaha Soomaaliya Somaliland badaheedu waxay ka noqdeen amaan dhulka ayaa amaan laga dhigay hawadii baa amaan laga dhigay oo hadaanay dad responsible ahayn ama mas'uul qaadi karaya dadka Somaliland diyaaradaha dul maraya khatar bay ku sugnaan lahayn waayo dawladdan la aqoonsanayno caalamku maaragtay ka sii jeestay bay ahayd marka imika waxaynu oran karnaa waxa duruufa keenay muhiimadda dhulka ay Somaliland ku taalo laga leeyahay iyo gobolka geeska Afrika iyo waliba badda cas oo muhiimad weyn u leh sidoo kalena waxa la arkay dadkan in loo aamini karayo oo marka la sheekaysatay dadka waaweyn ee siyaasiyiinta ah waxay ku sheegayaan in dalka 34 sanadood self governing ku jiray self governing hadii Soomaaliya ku macnayno dawlad iskorisayna oran karna marka dawladda 34 sanadood iskorineysay ee dadkeedii hubkii ka qaaday ee amaan samaysay ee lacag samaysatay ee dastuur samaysatay ee passport samaysatay waxay la jaan qaadi karaysaa dawladaha casriga ah ee adduunka marka taas waxay keentay in imika uu soo xoogaysto اعترافكم واتي سهرة انت joogtay DC دور جر waxaad tagtay aqalka senatorka ma waxaad u sheegtay inaad Somaliland ka timi inaad hawlo Somaliland wado sidee bay se u arkeen runtii waxa jira marka hore Cabdixaafidow sidaad ka warhayso 14 sanadood baan ka shaqeynay Washington DC laakiin wixii ka dambeeyay 2018 ka bilaabma 2018 dhamaadkii 17 ilaa bilowgii 18 waxa jiray hawlo kale oo gaar ah oo ka madax banaan shaqada saxaafadda oo aan hayay oo consultant la xiriira oo diblomaasiyadda la xiriira oo aan meelaha qaar macallin ka ahaa meelaha qaarna ma aragtay la talin iyo aan sameynay marka shaqadaasi waxay isku kaayay xidhay dad badan oo ama ka shaqeeya Congress-ka ama ka shaqeeya safaaradaha dalka xafiisyada kule ee dawladaha kale ka yimi ama ha noqoto dad kale oo iliida marka shaqadii dadkii aanu isku baranay meel kasta way joogaan ha noqoto golayaasha ha noqoto dad waxa kamid ah Congress-ka ku jira kamid ah dadkan hore la soo shaqeeyay dadkaas marka waxay markaan anagu isbaranay isla markiiba waxay isbaranayeen inaan ka soo jeedo Somaliland marka maaha wax ku cusub inaan sahri Somaliland ka timi laakiin imika maadaama oo inta hore kale de waxaan hayay shaqo saxaafadeed oo caalamiya etikiska saxaafaddu iyo shaqada inuu haynay aniga adiguba inoo musaamaxaynin waxyaabo kale inaynu si public u wadi karno
inagoo markaa shaqada ixtiraamayna waxay ahayd in wuxuu hoos iskaga socdo imika laakiin shaqo aan hayo oo ama shaqo dawladeediina ma jirto shaqo dawladeed oo aan hayay dawladda Mareykanka anaa ka tagay oo ruqsad ka qaatay shaqo dawladda Soomaalilandna ma hayo marka waxay ila noqotay inaan imika uga faa'iideeyo dadkayga xiriirada kala duwan ee muddada soo dhismayay oo aan hubaynay wax badan inaga caawin doonaan qadiyadaha ama arrintan ictiraafka Soomaaliland markaan tago Congress-ka dabcan de meesha u socotay mar waxaad arki karaysaa qofkii senatorka ahaa ama qofkii congressman-ka ahaa marna dadkii shaqaalahoodii iyo xafiiskii baad arkaysaa oo waraaqihii imka maalintii ugu dambeysay aan geeyay oo kale ee dadka Soomaaliland igu soo hagaajiyeen waaweyn waxaan u gudbiyay xafiiska marka xafiisyadii baad geynaysaa markaad u tagayso ama appointment ka soo samaysanayso ballan ama aad cid ballan uga soo samaynayso inta kalena marka doonaysid qof mas'uul la kulantidna waxay u baahan tahay inaad ballantii samaysatid aad sugtid marka aad sidaas aad ugu la soo kulantid marka iyagoo og inaan ahay qof American citizen haddana waxay og yihiin inaan ahay qof asalahaan ka soo jeeda Soomaaliland Talk Limit waxa ay si sharaf leh u taageertay Somali Week Toronto sanadka 2025 وحس فرحت له oo isugu jira kubadda cagta dhaqanka iyo arrimaha bulshada Talk Limit ma aha oo kaliya adeeg lacag diris caalami ah waxay ka shaqeysaa oo kale in qoysaska la isu soo dhaweeyo bulshada oo la taageero iyo waliba horumarka dadka taasi waa sababta aan u taageernay mashruuca Somali Week Toronto sanadka 2025 bulshadu ma aha oo kaliya halka aad adigu joogto waa meel kasta oo ay jaaliyadu joogto ahmiyaddeedu waa Talk Limit mar kasta iyo meel kasta واتهاي دوان واحد لكلونتي تيم كروس او كاميدا اقلك سنتك ahna iminka ninka ka shaqeynaya in dawladda Mareykanka madaxweyne Donald Trump oo Soomaaliland aqoonsado bal kulankii nooga waraysaa sidoo u dhacay runtii maalintii arbacadii baan samaystay ballanta maalintii jimcihii baana la igu soo warceliyay maalintii isniintiina waan tagay xafiiska marka kulankaasi wuu koobnaa oo sidaynu ka warhayno senatorku maalin kasta oo salaasaa wuxuu joogaa xafiiskiisa ku yaala gobolka Texas uu ku leeyahay gobolka isaga laga soo doorto marka maalintaas ninta wax weyn maalintu safro uu tagayo halka kulankanna ballanta xilliga samaysay aad iyo aad bay u dhaway marka horta runtii waan uga mahad celinayay isaga iyo shaqaalaha xafiiska oo aad iyo aad si diiran ii soo dhaweeyay waxa kale oo marka aan doonayaa inaan dadka reer Soomaaliland uga faa'iideysto in ninkaasi uu ka go'an tahay sidii uu riixi lahaa اعترافك Somaliland كلنا كما aha oo dad badan oo kala jira oo sanadka xubno aad u badan waa markii ugu horeysay dadka inta leege mas'uuliyiin la soo doortay mandate haysta ay u istaagan iyagoon cidna dabada ka riixayeen inay yiraahdaan Somaliland xaq bay u leedahay markan la aqoonsado waana mas'uuliyadda in dal lagu aaminano way ka soo bixi karayaan marka in Somaliland la aqoonsado sidoo kale aqalka hoose ama aqalka loo yaqaano wakiilada oo waxay soo taraya tirada dadka maalintan ugu dambeysay tagay inkastoo maalintaas ka kuwaayad haydo maalmaha qaarna shirar baa socdo oo waa buuq oo dad badan baa joogo oo shaqaalahoodii baa joogo dad la kulmaya jooga aad bay buuq u tahay maalmaha qaarna waa iska kuwaayad oo dad kooban baa jooga oo maalinta xataa waxaan isku dayay inaan taga xafiiska afhayeenka waa maalintan ugu dambeysay laakiin wuu xidhnaa oo albaabkiisa wuu xidhnaa askarigiisa ay sheegay inaanu joogin marka maalintaas ka kuwaayad bay hayd laakiin intii aan dad la kulmay ama shaqaalaha noqoto ama dadka stafferska kala duwan ee Congress-ka noqdaan qof walba wuxuu diiranaan ayuu u muujinayay Somaliland iyo dadkeeda oo ay ku amaanayeen nabadgelyada doorashooyinka arrimaha xuquuqda aadanaha iyo siday maaragtay beesha caalamka iyo ummadda ay aan wax badan gashanin ay haddana ula dhaqmayeen ilbaxnimada
واتهاي سهرة مركا لأيقا دادك رئيس سومالنا كسوتش دقين مريكنكا طبعا سومالنا قونسي بدونيسا دي سوماليا أي وريس كجران دينا عاد دال بدن أي كجرو دي رقوايس هيا مركا انت بدن مركا لأركو السوشيال ميديا هنا واحد أركسا إن aad moodo in dadka ka soo horjeeda inay Soomaaliland hesho aqoonsi ay dadaal badan bixiyaan shacabka reer Soomaaliland ee jooga Mareykan sidaad u aragtaa dadaalkooda ma oran lahayd inay badiyaan baa muhiim ah inay laba laabaan runtii haa oo markasta horta dadku waa inay laba kala fahmaan dad iyo dalba Cabdixaafid oo kala jira dadku waa dadkaaga ehelkaaga hooyada iyo marka laga bilaabo caruurtaada ilaa maxaan ku raahdaa qofka Soomaaliya isir Soomaaliyeed liyorto waa dadkaaga macnaheeduna maaha haddii dadku ay doonayaan in Somaliland aqoonsi hesho in aad xumaynayso dad kale oo Soomaaliyeed ama dagaal kula jirto dal iyo dad maadaama ay kala jiraan dadkaaga Soomaaliyeed wanaag baad la rabtaa wanaag baa naga dhaxeeya meel kastoo ay Soomaali joogtana waa dad walaalo isku dhiig oo isku maaragtay isra laakiin dal bay Soomaalidii kala leedahay dalka soo imka afarta Soomaaliyeed kala Soomaalida waxa la waa shan Soomaaliyeed oo maaha wala isku waafaqsan yahay cid ku murasani jiray صح shantii Soomaaliyeed kala inanka jigjiga jooga ama inanta jigjiga joogta baasaboor Ethiopian haysta dawladdaasi ka tirsan tahay meesha doontay ku maraysa inanka xamar jooga dawlad buu leeyahay baasaboor buu haystaa inanka Gaarisa iyo Wajeer jooga baasaboor Kenyaana buu haystaa inanka Djibouti jooga ee Soomaaliya intaas waa dad wax isku wada ah oo wada ehela inanka jooga inanta joogta Djibouti baasaboor Djiboutian ay leedahay qarba laga yaabaa inay wada dhasheen oo ay baasaboor aniga kamida dad xaqana habrtaa digantay xaqana abtigaa digay xaqana maaragtay eedadaa digantahay dad wada ehelaa jira marka in waxa loo socdaa maaha wax kale dad Soomaaliyeed oo kala goynayay dad Soomaaliyeed oo la xumeynaya maaha macnaheedu iyo Soomaalinimo laga baxay narrativeska noocaasa ee dadka kala fogeynaya dadka faafiyada aqoonyahana dad siyaasiyiin u badan waa arrimo dadka nacayb ku dhex beeraya maaha arrintu sidaa arrintu waxa weeyaan waxa xaqa inanka Djibouti jooga iyo inanta Gaarisa joogta iyo inanta jigjiga joogta haysato ee ah inay dawlad leedahay inay Somaliland dadkeeda inanka Boorama joogay ka Burco joogay ka Hargeysa jooga iyo ka Ceerigaaba joogaaba inuu heli karo xuquuq la mid ah oo dawlad heli karo wax lagu diidaya iyo dambi lagu galayo in hawsha laga shaqeeyo ma jirto dadka Soomaaliyeed say maanta wax iskugu yihiin bay berina iskugu ahaanayaan sida maanta Djibouti oo dawladda iyo Soomaaliya dawladda saaxiib yihiin un bay halkan u noqonayaan marka in laga dhiga maaha dambi la galayo oo dadka qaarna marka cabsiin karta oo baqdin ku riidi karta maaha dadka marka Somaliland riska ahayd weydiisay Mareykanka jooga dadku qaar duruufo waxa haysta sharci qaar waxa haysta laga yaabaa inay isku dhiibeen oo marka ka baqayaan in arintooda sharcigoodu uga dhameystirnayn dad marka waxa jira laakiin American citizenisa xuquuq leh cod leh dastuurka oo Mareykanku u damaanad qaaday inay xuquuqaha ay doonayaan inay raadin karaan wadooyin sax ah marka xoog dhinac buu ka socdaa sidaad sheegtay adigu Cabdixaafid oo dhinac quraad moodaa inuu dagaal badan ku jiro oo dad soo casuumayo oo barnaamijyo qabanayo oo Twitter space kan inta badan waan galaa aad aragto dadkii oo maaragtay aad dhinac qura loo fixinayo laakiin dhinac kalena waxaad moodaa gaabis inuu ka jiro marka intaan hawshan bilaabeen anigu soo istaagay miidiyahan hey reer Somaliland hawl baa socotay ka kaca waxaad moodaa dad badan inay marka fadhiga ka kaceen fadhiguna marka laba buuq badan waxba tari maayo laakiin waxa wax taraya dadka aad doonayso inay arinta kula riixaan oo ka midho dhaliyaan inaad galaangal kastood u heli karayso aad gasho wixii aan marka galaangal heli karin way la soo xiriir karaan waan ka caawin karaa waxyaabo badan aniga imika Cabdixaafid oo ilaa 13 safaaradood oo dawlado kala leeyihiin oo Washington DC ku yaala oo saaxiib dawla ah baa jira oo aan la shaqeeyay sigaara barnaamijkan ku sheegay aan kala shaqeeyay marar badan oo kala duwan igu xisaabtama markay u baahdaan hawsha ay soo waca xataa anoo Somaliland jooga Hargeysa jooga aan ku sameeyay coaching iyo training aan ugu sameeyay online ka marka kuwaas oo miidhan waa dadkan maanta isticmaali karno inaan idhaahno maaragtay Mareykanku waa hawsha ku dhiiraday idinkuna nala gala oo idinkuna maaragtay riixa oo culayska idinkuna nala saara waxa kaloo jirta safar kale oo soo socda oo dalka Mareykanka gudihiisuna laakiin magaalada New York oo casuumadan ka helay
toddobaadka labaad bisha September ee soo socota xilligaas oo soconayo shirkii guud ee qaramada midoobay oo maxaan ku dhahdaa loo yaqaano General Assembly-ga ama shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo sanadkiiba mar la qabto marka dawladaha adduunka oo dhan iskugu yimaadaan hay'adaha iskugu yimaada waad ka war haysaa marka halkaana casuumad gaar ah oo shakhsiyaan ka helay inaan halkaana maaragtay tago wixii markaa ka dhiman baan sii gaarsiin doonaa biidnillah waa tahay waxaa jira sahro inaad sidoo kale sheegtay in waraaqo ay ku soo direen dadka Soomaaliland oo waliba dad siyaasiyiin oo aad ka xustay ambassador Hussein Ali Ducaale dadkii aad waraaqaha u geysay say u arkeen ma soo dhaweeyeen runtii way ka heleen waanay bogaadiyeen oo markaad hawl dad u qabanayso ama wada qabsanaysa arrintan waxaan oran karaa waa wax wada qabsasho marka hawsha dadka aad wax wada qabsanaysa marka iyaguna sida dadku u diyaarsan tihiin iyo u doonaysaan iyaguna u doonayaan si leeg runtii way soo dhaweynayaan midda kale effortkii in la arkay bay tusaysaa oo cawil oo kale waa nin weyn oo siyaasiya waa nin diblomaasiya oo safaarada soo maray waa nin ilaa isku darkii labada gobol ama labada dhinac ee dawladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya markii la isku daray nin u soo taagnaa weeyi marka muhiimad gaar ah oo sawiradiisii baa la socday isaga warqad uu soo diray waxa la socday taariikh badan markan u gudbiyay inkasta oo aanan qofkii sanadka ahaa gacantiisa ku ridin laakiin xafiiskiisa markuu ku ridan u sheegay aad buu ugu farxay guud ahaan sare adigoo soo koobaya maxaad oran lahayd dadaalkan Mareykanku uu ku jiro inuu Soomaaliland aqoonsado inta ay leeg tahay iyo waxa la fili karo runtii Mareykanka inta aan imka ku sheegayo laga soo bilaabo 2013 hoos baan ula socday arrinta Soomaaliland mar walbana waan arkay halkay marayso heerkulku maanta meel ka sareysa ma jirto waxa kaliya maanta Mareykanka ma urursanay maanta waxaan ka urursanahay Soomaaliland dhinaceeda inuu habrihii iyo waxyaabihii dadku kala sheegan jireen iyo qabyaaladii iyo daraamadaasi ay maaragtay wax badan dib inooga dhigto oo dadkeena iyo dawladeena isku duubanay ay hawsha ka faa'iideysan waayaan waa meeshii ugu sareysay dadka Soomaaliland baa aqoon u dirayana waxa weeye habrahan iyo beelahan waynu leenahay haysta qof waliba intiisa maaragtay ha haysto laakiin dan qaran oo weyn baa inoo taale dantaa qaran aynu galno markay taa ka nimaadnay way inoo sii joogayaan beelaha iyo waxyaabaha hoose laakiin dantan weyn ee qaran aynu dhinac uga soo wada jeedsano dhinac kale aynu kala fahanno siyaasadda qarannimada Soomaaliland iyo waxa hoose la isku hayo aad iyo aad dadka Mareykan degan awooda inay mashruucan ka qayb qaataan oo lahan ka qayb qaataan maxaad oran lahayd sahar dadka waxa leeyahay waxba dib ha u dhiganina waayo waliba Cabdixaafid oo in yara kooban hadan taariikhkaas iyo aniga taariikhahan aad u ururiyaa ilaa 60kii ilaa imika taariikhdii Soomaaliyeed dhulka Soomaalida oo dhan wax ugu seegani ma jirto Mareykanka waxa ka jira urur la yiraahdo Sabri oo aad u xoog badan oo dad aqoon-yahana Ilaahay u naxariistay intii dhimatay maaragtay xanuunsan Allah caafiyo intooda joogtana Allah maaragtay barakeeye ururkaas Sabri wuxuu ahaa urur aan oran karo dadka Soomaaliland oo dhan ee qurbaha jooga ururkii ugu xoog badnaa buu ahaa urur intellectually soogaminayaan buu ahaa urur afkaartiisu cad tahay buu ahaa urur waxtar badan wadanka u soo kordhiyay buu ahaa laakiin intii ka dambeysay waxaad moodaa xagga Ingiriiska inuu abaabulku nooga badan yahay oo dhinacii Cabdixaafid oo geestiina UK dadka Soomaaliland dariska jooga aad baan u bogaadinayaa waa dad ay ka go'aantay qadiyadda Soomaaliland marka tusaale u soo qaadano sawirada ilaa imika marka warbaahinta caalamku arrinta Soomaaliland ka hadlayso sawirada la soo qaadaa ee la keenay la soo bandhiga waa sawiro laga soo qaaday ama UK ama Hargeysa ka yimid iyo Soomaaliland gudaheedii magaalooyinkii Soomaaliland marka inay waxay ku tusaysaa indhaha caalamka sida dadka UK jaaliyada Soomaaliland ee UK ku dhaqanay u qabsatay ee aan la dafiri karin sida 18 May iskugu soo baxaan sida iyagu u keeneen xataa degmooyin iyo gobollo hoose inay gelin horeba Soomaaliland aqoonsadaan 12 sanadood ka hor marka ay welina wadaan ay ahayd xildhibaanadii ugu horeeyay ee dooda waaweyn keenay baarlamaanka UK dadka Soomaaliland baa ka soo shaqeeyay marka waxaan leeyahay dadka Mareykanka dadkii Sabri ka mid ahaa baa tihiin maaragtay ay halkan ay ahayd waxa la haydeen Soomaaliland urur kale isaguna jiray oo magaciisa aan yaray loo sanay imaka oo rag badan oo weyn oo naqaanay imaka oo ku soo gaaray baa ay maaragtay ku jiraan
dadka ingiriiska oo kale tallaabadiisaas oo kale aynu qaadno aynu xoogayna muujino intii markaa caqabad gaar ah oo shakhsi haysanin laakiin awooddaa samayn karaysa inaan culaysku dhinac lagu daynin balansku hadduu dhinac u bato dhinacaasaa loo qamidbaya marka in dadka somaliland fadhiga ka kacaan horena waan ugu booriyey maantana waan ku celinayaa wadankaaga waxaad u qabato xaqa wadankaaga kugu leeyay weeyi ma aha cidna ma dambaajinaysid cidna dambi kama gelaysid cidna ma xumaynaysid anigu ma jecli dadka abaabula dagaalada kama qayb galo wax uun ku xidhiidha dad bini aadan ahoo la dhibaataynaya ciddu doonaba ha noqde ama meelo lagu duulaya ama reera isku duulaya ama gobolle isku duulaya laakiin markaad wax wanaagsan oo positive u soo kordhinayso positivekaasi wuxuu faa'iido u yahay ummadoo dhan marka dadka somaliland xaq bay u leeyihiin waxay soomaalida kale xaqa u leedahay ay haysato inay somaliland helaan marka waa xaq waajib dastuuriya iyo waajib bini aadanimo inuu gudanayno inaynu wadankeennana maaragtay u shaqayno insha allah waa tahay sahra aad ayad horta u mahadsan tahay tan britain iyo jaaliyadda somaliland markaad eegto haddii lagu noqdo taariikhda ay jaaliyadda somaliland ku leedahay sahra ay dalkan britain iyo xilligii ay timi iyo dee heerka ay ka joogto marka la eega qadiyadda somaliland waxyaabaha ay ka qabtaan runtii waxaa lagu murmi karaa in aanay halkii la rabay u dhoweyn marka ayaga laftooda way u baahan yihiin inaad baraarujiso oo aad u sheegto inay iyaguna hawshaas ay ku dadaalaan horta faraska waxaa usha loogu sii dhuftaa baa la yidhi inuu ka sii badiyo iyaga waxaan leeyahay maraykanka waa ka yara horeysaan orodka dadaalka sii badiya maraykankana waxaan leeyahay baryahan waa isdhigateena kor u kaca aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sahra adigaa mudan cabdi xaafid waa tahay sahra ciidle nuur oo iminka joogta washington intii ay halkaa kusugan ka shaqeynaysay hawlo la xidhiidha aqoonsiga somaliland oo senataro ka mid ah dalkaasi ay aad uga shaqeynayaan waxa aan kaloo sahra ku leeyahay hawshii baarlamankana dee waxaan rajaynayaa inaad noqon doonto inaad ku guuleysanayso xildhibaan sahra ayaan anigu iminka kugu yeedhaa taana insha allah mar kale iska wareysan doonaa laakiin insha allah taana toddobaadka dambe aynu ka dhigan cabdi xaafid arrimo gudo iyo arrimo dibad la iskuma daro maanta halkaa dibadaynu ku koobnaanayna waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sahra walaal adaa mudo walaalkay cabdi xaafid ismaaciil ay